CD oo ay ka dhacdadii macalinka dhibka loogu geystay annagoo ah bahda waxbarashada qaybahooda kala duwan waxaan cambaaraynaynaa oon ka soo horjeednaa oon ka dhiidhinaynaa dhibka loo geystay macalinka Soomaaliyeed macalinka oo waxtar u leh bulshada laga sheekeeyo hadda waxtarkiisa la'aantiisna bulshadu aysan horumarkeeda uusan jiri lahayn asagoo bidhaamiyihii wanaagga iyo horumarka iyo tacliinta iyo aqoonta ahaa in dhib loo geysto lagu abaalmariyo in nafta la seejiyo runtii waan ka xunnahay aadaan uga xunnahay sida la sheegayna waxaan soo jeedinaynaa in macalinka cadaalad uu helo inaan u hiilino hiilka aan u hiilinaynana waxay tahay in falka ciddii geysatay ee ku gardarootay ee ku xadgudubtay macalinka ee naftiisa dhaafisay in la helo ayadana laga abaalmariyo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala intaan waxaa isu keentay waxay tahay oy la wadaagayaan macalinka Soomaaliyeed dhibka gaaray waxaana gubaayo ee isu keenayna waxay tahay taas waxaan rajaynaynaa falalka noocan oo kale ee ugubka ah ee bulshadeena lagu aqoon ee maalmaha isu soo talay runtii in wax laga qabtana hay'adaha ay khuseysaan u soo jeedinaynaa sidoo kalena waxaan insha allahu tacaala laga bilaabo xilligan horeyna u jiray guddiyo waalid iyo dugsiyadii iyo maxaan ku dhahaa waalidiintii inay wada shaqeeyaan in la iska kaashado tarbiyada iyo tacliimta ardayga Soomaaliyeed haddii ay tahay dugsi iyo hadday tahay jaamacad intaba waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay isku xirmaan oo ardaygii garaadkiisii aqoontiisii akhlaaqdiisii la isla kobciyo la iska warhayo inta ardayga guriga uu joogana laga warhayo oo waalidkii mas'uuliyad ay saaran tahay inta dugsiga uu joogana tarbiyada iyo tacliintii macallimiintu ay hayeen way sii hayaan in la iskaashadana waan rajaynaynaa wacyigelin joogtaane in la sameeyo oo falalka noocaan oo kale ah ee ugubka ah ee nagu cusub ee horey loo arki jirin macallin dugsi inta loogu yimid lagu gardaroodo nafta la dhaafsiyana inaysan dhicin hadda kadibna insha allahu tacaala waan rajaynaynaa guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeedna runtii way sharfanaayeen wayna sharfan yihiin wayna sharfanaan doonaan xilli adeegaan hayeen ayadoo caqliga uusan iyo qofka dalkan ku sugan uusan suuraysanayn xilli dagaallo iyo colaad iyo abaaro ay jireen ayuu soo saaray quruxdan qof kasta oo magac iyo maqaam kale bulshada dhexdeedana waxaa soo baray macallin Soomaaliyeed aaday u mahadsan yihiin ilaahay miisaankooda xasanaadka ha u saaro sharaf iyo qadarin iyo tixgelin iyo qiimo gaar ah mudan yihiin macallimiinta Soomaaliyeed oo adeeg runtii aad muhiim ah u hay bulshada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta bayaanka iyo maxaan ku dhahaa ay soo saarayaan bahda waxbarashada in hay'adaha dawladda ay u dhaganuglaadaan ay maqlaan ayna insha allahu tacaala ku dhaqmaan hadduu ilaahay idmo guud ahaan waxaan isaga wada tacsiyeynaynaa macallinkii naga baxay ustaad cabdiraxmaan macallow abikar ilaahay u naxariisto hoygiisa hoy jannaad allaha ka dhigo firdows al-aclaa ilaahay ha ku martiqaado annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo camalkiisii iyo shaqadii wanaagsanayd uu hayeyna ilaahay sadaqa jaariya allah uga dhigo waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala meel fiican inuu tegi doono hadduu allah idmo sida markhaatiga laga yahay macallin murabbi ahaa maado kasta dhigaaye ardaydiisa u fiicnaa dugsiga u fiicnaa mu'asasadii iyo hay-addii dugsiga maamuleysana u fiicnaa oo xidig bidhaamaayo oo macallimiinta ka dhex bidhaamaayo runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala asaga iyo inta kale adeega bulshada u haysay oo macallimiinta Soomaaliyeed camalkooda wanaagsan inuu ilaahay ka abaalmariyo jazaakum allahu khayran. Assalaamu calaykum.